إنا لله وإنا إليه راجعون عاو وهبين مذو أمور بدن qoys kasta oo ku nool magaalada Muqdisho caawa waxa uu dareemayaa murug aad iyo aad u daran runtii dhalinyaradii Soomaaliyeed caawa waxa lagu laayay xeebta liido ee magaalada Muqdisho kooxda argagixisada ah ee al-shabaab maalinba maalinta ka dambayso waxa ay leynayaan dhalinyaradii Soomaaliyeed kuwan ama sawiradan aad u jeedaan waa qaar kamid ah dhalinyaradii la xaqiijiyay ee geeriyooday in ka badan 30 qof oo dhimasho iyo dhaawac ay xaqiijinayaan saraakiisha ammaanku in laga soo qaaday xeebta liido ee magaalada Muqdisho welina dablay hubaysan ayaa ka dagaalamaysa hotel ku yaala gudaha xeebta liido ee magaalada Muqdisho qiyadaha ammaanku waxay sheegeen inay wadaan weli gurmadka iyo sidoo kale sidii dablayda hubaysan ee al-shabaab ka tirsan ee dagaalamaysa loo soo afjari lahaa qaraxyo ayaa dhacay fakti hore oo ilaa 2 qarax ayaa la sheegay in halkaas ka dhaceen waxaanay wararku sheegayaan in dad nool oo maleeshiyada al-shabaab ka tirsan inay isku qarxiyeen xeebta liido ee magaalada Muqdisho runtii waxa caawa ka dhacay liido ma aha wax dadka Soomaaliyeed ay ku farxi karaan waa wax aad iyo aad looga naxo muruga ah waa habeen madow ay u tahay Soomaaliya runtii dhalinyaradii Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa caasimadda ku noolaa ayaa caawa hal goob lagu laayay runtii intaan arkay dhacdooyin noocan oo kala ah oo argagax xalay al-shabaab ka geystaan waa goobtii ugu badneed ee dhalinyaro intaas la eg lagu leynayo way jiraan qaraxyo ka dhimasho badan sidii Zoba 1 iyo Zoba 2 laakiin haddana caawa runtii waxa dhacay wax aan innaba aan caadi ahayn laakiin haddaba tani waxay u baahan tahay isbedel degdeg ah oo dhanka hay'adaha ammaanku ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho runtii muddo bil gudahood wax aan caadi ahayn ayaa Muqdisho ka dhacay waxa lagu dagaalamay gudaha xabsiga dhexe qarax ayaa ka dhacay goobaan sida uga fogeyn taalada daljirka Dahsoon toddobaad ka hor haddana waa mar kale oo xeebta liido ay qarax gilgilayaan iyo weeraro waxaana ay tan u baahan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay sameeyso isbedel degdeg ah oo dhanka hay'adaha ammaanka waxa loo baahan yahay jawaab waafi ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada qanci karaan in laga bixiyo weerarkan iyo kuwii ka horeeyay intaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo anigu qaarkood aan garanayo ayaa geeriyooday waana wax aad iyo aad looga naxo injiilkii dhalinyarada ahaa in maalinba maalinta ka dambayso oo leynayo al-shabaab dadkii Soomaaliyeed iyo madaxdiina ay daawanayaan intayna nool maanta ee aan loogeyn inta ay gaari doonaan waxa loo baahan yahay in loo midoobo sidii cadawgaas dalka looga saari lahaa kulama aad dhimanaysid waxa la qaatay inaad dhimato adiga oo dagaalamayo maadaama meel lagugu cafinayo aanay jirin runtii qasaaruhu waa uu sii kordhayaa lamana sheegi karo ilaa iminka intay tirada la eg tahay dhimashada iyo dhaawaca weli gurmad ayaa socda sidoo kalena maleeshiyadii ayaa lala dagaalamaya oo hay'adaha ammaanku waxa ay wadaan 2 gurmad oo midna ay tahay in dadka gudaha ku jira la badbaadiyo wixii nool iyo in dhaawacyadii iyo meydadkiiba laga soo qaado goobta xaaladdu weli waa ay kacsan tahay mana aha mid degano dawladda federaalka ayaa sidoo kale laga sugayaa sida ay wax u dhaceen khasaaraha tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo faahfaahinta rasmiga mar walba iyo daqiiqad kasta halkaan idin kula soo wadaagaya idinkuna isku haya bogeyga Axmed Saciid Axmed waa mahadsantiin